waxaan noo maanta sharaf weyn inaan soo siyaarino dowladda hoose meeyarkii meeyar ku-xigeenkii aan soo siyaarino ilaahay noo suurtageliyey safarkayga aan ku nii burco markaan is wareysanay waxaa noo sheegay meeyarkii meeyar ku-xigeenkuba in leeyihiin qorsho degsan oo vision aad iyo aad u fiican marka horeysa waxaan ka bari lahay xilka idku asturo ilaahay noqdo qaar ilaa noqotaan kuwii xilkooda ka soo baxa ummadooda iyo diintooda iyo qarankooda u shaqeeya waxaan ogaanay inay halkan ay la kulmeen dhibaato badan oo wax horo jiray meeshii aanay jirin mataqaan marka hore filinay xitaa arkiifi aanay jirin ay maanta ka bilaabeen from zero ka bilaabayaan waxaan marka ku boorinaynaa kow inay cashuuraha gurtaan cashuurta ay gurayaan ay si u helaan cashuurtii inay soo kalsoonida shacbiga weli imaka expectationkoodu ay aad iyo aad ay u sareyso oo laga filayo isbedel weyn iyo waxqabad weyn waa nama noo dhalinyaro ah waxay sheegeen yihiin labadii ugu dhalinyaro golaha deegaanka ay yihiin alxamdulillah isku jaamacadaha ayaan ka soo wada baxeen barco jaamacadooda soo shaqeeyeen NGO-yada oo dad experience ya elihiin de wax kale ma jirto waan u ducaynaynaa waxaan jecelahay insha Allah inay noqdaan example fiican lagu daydo oo dhalinyarta maanta Soomaaliland ay niyadooda soo celiyaan ma aad moodeen niyad jabeen kuwii niyadooda soo celin lahaa dalkooda in aaminaan ku soo celin lahaa baa Ilaahay ka baryo subxaanahu wa ta'ala aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaad ogaataan mar haddii aad noqoteen xil qabateen deegaan oo heer qaran ah waa u simantihiin saddex xusbiba shacbiga waa kii kulmiye ah iyo kii wadanaha ku cidaaba waa la simantihiin waa wada adeegisaan dawladana waa wada shaqeynaysaan dawladuhu sharciga la daadajiyay awoodda la daadajiyay micnaheedu ma waxa kale tihiin dawlad kala jaada waxa weeye waa wada shaqeynaysaan wixii ay uga baahataan central government-ka waa ka doonataan waa inay idin kala yeelan mucaarad iyo maxaafid waxaad tihiin meeyarkii meeyar ku-xigeenkii magaalada burca tihiin dadku weydiin siman yahay dowladdu waa dowladeeni barasaabku waxa weeye barasaabka wakiilka madaxweynaha ayuu ka wakiil yihiin marka wada shaqeyn saas wada shaqeyn leeyahay waxaan wax ku noqon karnaa inoo gacmaha is qabsana wax ku noqon kartaan idinkoo is aamina oo wada shaqeeyo oo isku xajiimoon si badan dhacda ay wax ku noqon kartaan waa mahadsantiin aad iyo aad baa mahadsantiin maanta oo 16 bishii sagaalaad maalin axad ah waxa xafiiska nagu soo booqday gudoomiyaha xisbiga Wicid injineer Faysal Ali Waraabe xisbiga Wicid waa xisbigii maayarka iyo ku-xigeenka soo baxeen xilligii doorashada maanta oo aanu nahay maayarka iyo ku-xigeenka magaalada Burco bal soo booqda booqasho fiican oo ah sida wax u wadaan iyo arlada sida yihiin maadaama dadka dibadda jooga ama dadka lixjalada kale ee dalka jooga sharciguna u saamaxay inay meelo badan daba galaan gaar ahaan dadkii ka soo baxay xisbigooda maadaama magacoodii aanu sidno aad baan ugu mahad celinaynaa booqashada uu noogu yimi sida uu sheegay gudoomiyuhu dawladda hoose shaqadeedu ujeedadii loo abuuray iyo waxa laga doonayo waa wax qoran waana waxay tahay in halbeegyo cadcad yeeshaan oo la daba eego annaguna diyaar baanu nahay dabagalna lagu sameeyo in la eego qorshayaasheeda sidaanu qabanayno in la hubiyo waxaanu qabanayno in la hubiyo waxaanu qabanayno in dabagal lagu sameeyo in su'aalana laga weydiiyo sidoo kalena wada shaqeynta laamaha dawladdu aad bay muhiim u tahay maadaama dawladda hoose ay wakiil ka tahay shacabka isla markaana xeerku uu sheegayo 110 inay ka mid tahay wax ka mid ah fulinta ama guud ahaan xukuumadda aad baan ugu mahad celinaynaa Faysal iyo gudoomiyuhu aad buu fahansan yahay nidaamka dawladeed iyo hal sidoo uu shaqeeyo markastana hadaladiisa iyo waanooyinkiisa iyo qayladhaantiisa waxa ka muuqata ama ku dhex jirta dadku inay fahmaan nidaamka dawladdu u shaqeyso aanay ahayn hadba qofkii meesha yimaada sida uu fakarayo waxaan tahay xeerar iyo nidaam shaqeeya oo dadka adeeg u qabta anana insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa ujeedadii loo sameystay dawladda hoose iyo sababtii loo aasaasay
inaanu ka dhabayno shaqada aasaasiga ay qabato ee bulshada kaalinta ugu jirta inaanu soo celino wixii awoodayada ujeedada kaliya meeshana keentayna taasun bay ahayd laakiin maaha in anaga magacayaga waraqaha lagu qoro saxiix iyagu meelaha ka muuqdo mar bay madax ahaan jireen macna nooma sameynayso dunida oo dhan waa laga dhimanaya marka qofku wixii uu awoodo inuu ku darsado ummadiisa meeshana keentay tiina waan ka dhabaynaynaa gudoomiyaha iyo cid kasta waxaan ka codsanaynaa in lagu dabagalo in ushana lagu dhufto in lagu ka kordhiya in la weydiiyo wixii aanu sheegaynay ama qornay ama nidha waa qabanaynaa inaan lagala hadhin hadalladeeduna inaanay guul wadayn iyo waxaan baanu qabanay iyo wallahi shukr ala alwaajib waxaanu qabanaa waa wixii meesha aanu nimi waa wixii heerka ku qornaa wax lacagtan lagu siiyo laakiin haddii wax la qabto ma macnaheedu annaga qabanno abaal baan idin kale ma waa waxaad iigu diratay meesha inaan waxaan qabto haddaan wixii qaban waayna canaamad xaqiiq u leedahay haddaan qabtana dee waad iga iibsatay simbadi waa sababtan meesha u yimi marka aad baan idinku mahad celinaynaa soo boqoshadaadina waan kaaga mahad celinaynaa gudoomiye xisbiguna inuu aad noo dabagalo oo dadkii soo saaray inaanay bulshada ku dhex cooboobin uu dhanna ka taageero dhanna ka toosiyo ayaanu ka codsanaynaa